Shit. Let me tell you what happened though. Thug life, thug life. It's been 16 years, still stuck in a dark cage. Living in my mind, thinking about the fateful day. 9796, I remember like it's yesterday. I got a lot to say, it'll make a thug, make it cry. How the media said that I died, but I'm still breathing. Who do you believe in? Everything that they said was a lie. You see, listen, we was in Vegas, getting faded in the city of sin. I had a bad feeling that night after the fight at the MGM. Can you feel me? We left the telly on the way to the club. These hoes pulled up right beside us. My adversary steady plotting on my death. Squeezing bullets to my name on my chest. I heard gunshots, but it got weird. Instead of bullets, only smoke appeared. Next thing I knew, 2 men in a suit were just standing there. He opened the door to grab a nigga by his feet. Let my head hit the concrete. It was a nightmare, dragged on the street. Scars on my back, looking at the white Cadillac. Before the black bag over my head, I couldn't believe what I happened to see. A nigga who looked just like me in the passenger seat. But it can't be me, sitting there next to Suge. Another 4 shots and that can't be good. I gotta find a way, that's what I say. Next thing I know, a blow to the head. السلام عليكم أصحاب تمير والباجوكتين كسر دواد عبد السلام channel. halkan maanta waxaan idinkaga soo gudbinayaa sheeko oo ii soo diray saaxiibkay Sacad Ciise Cumar oo waqti hore dhacday. sheekadani waa sheeko aad iyo aad u cibro qaadasho mudan, waana sheeko qof walba aadana ku dhici karto. sheekadu haddaan guda galno waxay dhacday qarn 1996. saaxiibkay Sacad ayaa sheekadan soo waray. haddaba wuxuu yiri waxay ahayd 1996 markii aan booqday dhulka baadiyaha ah ee ku yaala gobolka Saaxil Bari ka xiga. waxaa dhacday in aan habeen anigu aan lugeeyay oo aan u socday cid familkayga oo baadiyaha deganeed. meel dhex markaan sii socdo cambaar aan sii socday ayaa waxaa igu dhacday gobolkii ugu dhacay. waxaa la gaaray galabtii maqribkii. dabadeed markii maqribka la gaaray waxaan ku leexday, waxaan arkay cid family ah oo ka kooban oday iyo habar. marka oday iyo habartaasi wax caruur ah ma haystaan, waa labadooda kaliya. dabadeed waxaa dhacday ciddii aan u tagay. markaan u tagay waxaan ku iri safar baan ahay. reer baadiyuhuna waa dad aad iyo aad u ixtiraam badan. xagga martisoorkana waaba la isku caayaaba. qof hadduu marti u soo martiyo uu soori waayo waa la isku caayaaba. dabadeed waxaa dhacday ninkii guriga iska lahay ninkii oo wareystay wuxuu ku yiri waa daalantahee, daal baad kaa muuqdee inta iska yara fadhiiso. ninkii oo heebad wareystay, xageed ka imaatay, xageed u socotay. waan u sheegay yiri inaan ka imaado magaalada, aan u socday baadiye, aan u socday booqasho familkayga aan rabo inaan soo booqdo. ninkii cambaar markuu ila sheekaystay guriga ayuu dib ugu noqday. guriga markuu dib ugu noqday anigana waxaan iska fadhiistay meel bacad ah. bacadka waxaa la dhahaa ciida tuuran. halkaas baan iska fadhiistay. bacadkii anoo iska fadhiyo ninkii wuxuu ii keenay darin, buste iyo barkin ayuu ii keenay ama qadiifad, hadba qof walba soo yaqaano. markii uu ii keenay aniga marka waxaan xiise u qabay bacadkan tuuran maadaama mar hore ay ugu dambeysay dhulka miyiga iyo baadiyaha. marka bacadkii aan iska dul fadhiistay waxaan ku yiri walaal xoogaa yar ciidana xiise u qabaa, aan wax yar lugaha sagashto. waana taqaanay markii habeenka saq dhaxad tahay ciiduna waa diirnaad. dadkii baadiyaha yaqaana oo qoraxda markaas dhaco waa diirnaad qandac aan moodid. dabadeed salligii halkaas ii dhigay barkintii ii firaashay. cambaaro haddana ila sheekaystay, dib uu iga noqday. wuxuu igu yiri wuxuu noo keenay casho, wuxuu noo keenay cambuulo iyo wuxuu ii keenay caano iyo subag ii keenay. bartii aan ku wada casheynay. sheekadii cambaar iska sheekaystay. wuxuu yiri waa daalan tahay, iska yara seexa walaal, waa inoo berri hadduu alla idmo. sidii ayaan isku waabiraysanay.
oo sidii aan ku kala tagnay. maxaa haddaba dhici doona markii habeenkii inta badan tagtay? sheekadu waa halkaa. habeenkii markaan ka qiyaaso saacaddu 2 habeenimo maray ahayd ayaa waxaa ii soo galay ninkii ordaayo ii soo galay. markaas wuxuu igu yidhi walaalka xaaskayga way suuxday ee kaale ila caawi. waa soo orodnay gabadhiiaan u imaanay, waxaan ugu tegay gabadhii aqalkii, waxaan ugu galay gabadhii saas u rafanayso ayaan qolkii u galnay. dabadeed maxaa ku dhacay? maxaa ku dhacay? aniga waan sasay, waxaan sheegay waa qoway. gabadhii gacmaha ka qabtay. gabadhii markaan gacmaha ka qabtay ayuu igu yiri saaxiibkay Sacad gacmihii gabadhii ka qabtay. markaan gabadhii gacmihii ka qabtay ayuu ninkii wuxuu yiri walaal quraan aan ku wada akhrino. quraanka ku wada bilaawno, quraanka akhrinay campar. markaan quraanka ku akhrinay ayuu igu yiri walaal gacmaha ka sii hay, wadaadkii shiiqiya ma haye. meeshuna waa meel baadiyaha, qofna aysan ka dhaweyn, anigana dadna aan arkin. aniga marka maskaxdayda su'aalo badan soo gal. waxaan ku iri ana warka isku wada xijinayo, shiiq wax ku degan yahay, miyuu soo dhow yahay? shiiq meelaha magaalada kama dhaweyn, xageesa kala hadashay maadaama isgaarsiin intaba aysan jirin. markaasuu campar intayga aamusnaad markaan ku celiyay mar labaad ayuu igu yiri war shiiq jinniya waaye gabadha hay. aniga markii waa qaracmay, tala igu furmatay. maskaxdii aan ka lablay. mar waxaan is dhahaa ma carartaa, ma ka baxsataa meeshaan. mar waxaan is dhahaa war ha ku nagaan, ka carar meesha. markii dambe maskaxdeyda waxaan go-aan ku gaaray inaan joogo, maadaama wax aan loo jeedin aadan ka carari karin. bartii aan ku nagaaday. wixii dhacay ha dhacan. cambaar markaan gacmaha ka hayo quraanka aan ku wadno ayaa gabadhii anaga gacmaha aan ka hayay waxayba la soo baxdaba cod waaweyn oo ah assalaamu calaykum. codkii waa isbedelaba gabadhii. anigii wuxuu yiri fajac yaa makaag. ninkii guriga iska lahaa gabadha saygeeda ahaa waxay ugu yiri walaal iska sii daa, haddaba sheekh waa yimaadee. sheekhii salaanta kadib wacalaykum assalaam sheekh xasan. waa la iswareystay. markii la iswareystay gabadhii sheekhiyowba ninkii su-aal ugu dhaqaaqaba inuu su-aal weydiiyo. su-aashkooda wadaxeed sheekh xasan xagee hadda ka timid? sheekh xasan xageed hadda ka timid? markaasuu ku yiri hadda waxaan ka imid hindiya oo booqasho aan ku joogay. anuu hindiya booqasho ku joogay ayaa waxaa la ii sheegay gabadhii inay dhacday oo ay suuxday. saas baan ku imid. markaasuu ku yiri sheekh xasan ma martiqaad ayaa ku joogtay mise hawl kale ayaa u tagtay hindiya? markaasuu wuxuu ku yiri sheekh xasan dhahay maya martiqaad ayaan u joogay, hawlo kalena way iska jirjireen. markaasuu ku yiri sheekh xasan ka waran dagaalkii cuslaay ee idinka iyo gaalada idin dhexeeyay? markaasuu yiri dagaalkii wuu socdaa, haddana wuxuu maraa meeshii ugu qaraareed ayuu maraa. markaasuu yiri sheekh xasan dagaalkii ma idinkaa ku gacan sarreeydiin mase gaalada ayaan kaga gacan sarreeyaan? markaasuu yiri maya hadda dhulna way naga haystaan, annagoo dhul waa ka haysanaa. fahmaysaa? haddaba sheekh xasan ka waran inta qof oo maxaabiis ayaa ka qabateen, sidee waa imisa? markaasuu ku yiri waxaan ka haynaa maxaabiis fara badan. haddaba sheekada inta kaleeto waa idiin sii dhamaystiri doonaa. la soco qaybta kale insha allah. waa cabdisalaam channel. please like, subscribe, comment, share. ha ka iloobin intaba. barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa sheekooyin, mahmaayo, madadaalooyin, cilmiga bulshada, cilmiga diiniga, wax kasta insha allah. waxaan rajeynaa maalin kastoo jimca markay tahay saacadda 4 galabnimo geeska Afrika inaan idiin soo gudbiyo haddii allah nabada nagu daayo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.